bismillaahi araxmaani araxiim taariikhda saldanadda muqdisho qaybta shanaad dadka Soomaaliyeed waxay degan yihiin dalka Afrika jacalkiisa bari waxaana kaga hadli doonaa waxyaabihii uu ka qoray dhulmareenkii ibnu batuuta marka ay tahay dhanka martigelinta, dharkii ay xiran jireen iyo cuntada ay cuni jireen, iyo tan ugu yaabka badan oo ah sida ay u salaami jireen suldaankooda iyo halka ay caadadaas ka soo jeedo. waxa kale uu wax ka qoray gurigii ardayda ee la geeyey iyo inuu ahaa guri ay u dhan yihiin agabkiisa, waxaana loogu talagalay ardayda iyo martida saldanadda in lagu sooro. wuxuuna yidhi, waa guri ku dhow guriga sheekha, furaashan lana diyaariyey oo aad ka helayso wax kasta oo aad u baahan tahay. kadib waxaa cunto laga keenay guriga sheekha, waxaana la socday mid ka mid ah wasiirada sheekha, kaa oo u xilsaaran soo dhoweynta martida. wuxuuna nagu yidhi, sharfanuhu wuxuu idin leeyahay waad imaateen, khayr badanna waad la imaateen. kadibna wuxuuna hordhigay cuntadii. wuxuu faallo dheer ka bixiyey cuntada muqdisho laga cuno. wuxuuna yidhi, cuntadoodu waa bariis subag lagu kariyey, laguna keenay saxan aad u weyn oo laga qoray geed, waxaana korka ka saaran iidaam ama maraq laga sameeyey dooro ama digaag iyo hilib, malay ama qudaar. waxay ku kariyaan mooska inta uusan bislaanin caano dhay ah, waxayna ku keenaan saxan, waxaana kula jira saxanka caano dhanaan oo korka loogu shubay, amase waxaa lagu miiraa liin. waxa kale oo lagu cunaa basbaas laga dhigay mukhallal lana cusbeeyey iyo sanjibiil cagaaran, iyo cambe oo ah faakiha aysan carabtu horay u aqoon sida hadalkiisa ku cad. wuxuuna yidhi, waa sida tufaaxa laakiin waxa uu dhuuban yahay dhinac, kaa oo marka uu bislaado aad u macaan, waxaana loo cunaa sida faakihada ama miraha. inta uusan bislaaninna waa dhanaan yahay sida liinta. kaa ayay ku daraan marka ay bariiska mar qaataan, waxay ku qaataan dhandhanaanka. mid kasta oo ka mid ah reer muqdisho wuxuu cunaa cunno ku filan koox annaga ah sida caadiga ah, waana dad jirkoodu aad u waaweyn yahay oo aad u cayilan. cuntadana waxaa la keenayey 3 goor maalintii. in 3 goor wax la cunaana waxay u ahayd caado. markuu ka hadlayay dhar xirashada, waxa uu ku soo warramay ibnu batuuta, maalintii 4aad oo ahayd maalin jimco ah, waxa u yimid qaaliga iyo ardayda iyo mid ka mid ah wasiirada sheekha, waxayna ii keeneen aratir. dharkoodu waa maro hoosta lagu xirto oo qofka ku geejisto dhexda, taa oo ah beddelka saraawiisha, sababtoo ah iyagu saraawiil ma yaqaanaan. waxa kale oo la ii keenay diraaca Masar laga keenay oo giirgiiran, iyo furjiyad lagu sameeyey Muqdisho oo iyadana giirgiiran, iyo cumaamad Masri oo iyadana sidoo kale giirgiiran. asxaabtaydiina waxay u keeneen dhar ku habboon. markaan imaanay masjid jaamaca, waxaan ku tukannay mixraabka gadaashiisa. marka uu sheekhu ka soo baxay albaabka mixraabka, waan salaamay. sidoo kale waxaa salaamay qaaliga, wuuna isoo dhoweeyey. luqaddiisuu kula hadlay qaaliga, kadibna afka carabiga ayuu wuxuu igu yidhi, waad imaateen, khayrna waad la imaateen, waad sharafteen beledkeenna, waana noo wehel yeesheen. kadib wuxuu u baxay barxadda masjidka, wuxuuna dul istaagay qabriga aabbihiis oo halkaa ku aasan. qur-aan buu ku aqriyey, wuuna u duceeyey. kadib waxaa u yimid amiirada iyo wasiirada iyo cuqaasha, wayna salaameen. sida ay isu salaamaan waxay ahayd sida ay isu salaamaan reer yemen, oo ahayd in qofku farta koowaad marka laga yimaado dhanka suulka dhulka ku taabto ayuu madaxa saaraa, kadibna wuxuu yidhaahdaa allaha raajiyo sharafkaaga. kadib sheekhu wuxuu ka baxay albaabka masjidka, wuxuuna gashaday kabihiisa. cid kale oo kaba gashatayna ma jirin. wuxuuna aaday gurigiisa isaga oo soconaya oo aan wax fuushanayn, kaa oo ku yiil meel aan ka fogeyn masjidka. dadkoo idilna waxay socdeen iyaga oo kabala.
waxaana loo hoosaasiyey 4 madalladood oo xariir midabaysan ah, mid kastaana waxaa korka uga sawirnaa shimbir dahabi ah. wuxuuna ku labisnaa furjad qudusiye ah oo cagaaran, hoostana waxa uu ka xirnaa dhar masri ah oo bilicsan. waxa kale oo uu xirnaa hoosgunti ama macawis, waxaana u duubnaa cimaamad weyn. hortiisa waxaa la garaacayay durbaano iyo buun iyo turumbooyinka nooca hadda xamar looga yaqaano siinbaar. horay iyo gadaalna waxaa ka socday taliyayaasha ciidamada, qaaliga, fuqahada ama culimada iyo waxgaradka. wuxuuna galay shir. wasiirada, amiirada iyo cuqaasha waxay ku fariisteen hargo dhulka loogu goglay. qaaliga ayaa wuxuu u goglay sheekha bisaad ama katiifad. sheekhu keligiis ayuu ku fariistay oo cidna kulama fariisan. halkaana lagama kicin ilaa iyo salaada casar. markii salaada casir la tukaday, dadkii oo idil waxay u istaageen safsaf, iyadoo la dhowrayo sida loo kala darajo sarreeyo. kadib waxaa la bilaabay in la garaaco durbaanadii, buunkii iyo turumbooyinka siinbaarta. marka la garaacayo durbaanka, ma jiro qof halkiisa ka dhaqaaqaya, kii soconayayna wuu istaagaa. marka uu dhammaado garaaca durbaanka, waxay isku salaamaan salaantii aan horey usoo sheegnay, wayna kala tagaan. taasina waxay ahayd caadadooda maalin kasta oo jimco ah. mar uu ka hadlayay ibnu batuuta habka maamulka saldanadda, waxa uu sheegay, maalinta sabtida ah dadku waxay yimaadaan albaabka sheekha waxayna fariistaan meelo loogu talagalay oo ku yaala guriga sheekha. marka hore waxaa u gala qaaliga, fuqahada iyo culimada si ay ula tashadaan sheekha. waxayna ku fariistaan gambaro laga sameeyey geed oo loogu talagalay in lagu fariisto oo looga yaqaano magaalada muqdisho jiimbaar. qaaligu wuxuu fariistay gambarkiisa keligii. koox walba oo dadka ka mid ahina waxay fariisteen gambar u gaar ah oo koox kale aysan la wadaagin. kadib sheekhu waxa uu ku fariistay kursigiisa. kadib waxa uu u yeeray qaaliga, wuxuuna fariistay bidixdiisa. kadib wuxuu u yeeray fuqahada kuwa ugu waaweyn, waxayna fariisteen hortiisa. kulligood way wada salaameen, wayna is-sheegeen kooxdaasi waxa ay tahay. haddii ay yihiin marti, waxay fariisteen midigtiisa. kadib waxaa u soo galay mashaa'ikhda iyo xujayda, kuwa ugu waaweyn, way fariisteen. kadib waxaa soo galay wasiirada iyo amiirada, kadibna cuqaasha, iyada oo ay kooxiba kooxi ka dambayso. kadib waxaa la keenay cunto, waxaana lagu cunay sheekha hortiisa. qaaliga iyo cuqaasha iyo cid kasta oo meesha fadhidayna sheekha wuu la cunay. hadduu doono sheekhu inuu ruux si gaara u sharfo ama u karaameeyo, wuu u yeeraa, wuuna la cunaa. dadka oo dhan waxay wax ku cunaan qol loogu talagalay in wax lagu cuno, waxayna cunidda ugu kala horeeyaan sida ay ugu soo kala horeeyeen usoo gelidda sheekha. markaa kadib sheekhu wuxuu galay gurigiisa. qaaliga wuxuu bilaabaa isaga iyo wasiirada iyo kaatibka wax qoraa iyo 4 ugu waaweyn amiirada inay qaadaan wixii dacwooyin ah. wixii quseeya axkaamta waxaa xukmiya qaaliga. wixii ka soo harana waxaa xukmiya wasiirada iyo amiirada oo wada jira. wixii u baahan la tashiga suldaanka way u qoraan, jawaabtana dib ayuu ugu soo diraa iyada oo qoraal ah sida uu arrinkaa u arko. sidaa bayna ahayd caadadooda. halkaa haddaan kaga gudubno waxyaabihii uu ka qoray ibnu batuuta saldanadii magaalada muqdisho, oo aan ka hadalno dhulmareen kale oo maray muqdisho iyo waxyaabaha uu ka qoray. shihaabudiin abu cabdalla yaaquud ibnu cabdalla alxamaawi
oo loo yaqaan yaaquut alxamaawi. waxa uu noolaa sanadkii 179 ilaa iyo 1229. wuxuu ka mid ahaa dadkii booqday magaalada muqdisho ibnu batuuta ka hor in ka badan 100 sano, waxna ka qoray saldanadda. waxyaabihii uu ka sheegayna waxaa ka mid ahaa: waa magaalada ay ka bilaabanto dhulka afrikada madow kuna beegan koonfurta yemen ee dhulka barbarka. magaaladu waxay dhacdaa bartamaha dhulkooda. magaaladu waxay ku taallaa xeebta badda. dadkeeduna waxay ku dhaqmaan xeer ah in marka uu tago ganacsade in uu ku dego midkood, isagaana howlihiisa oo dhan u qabta. waxaana laga dhoofiyaa sandalka iyo geedka la yidhaahdo abnuuska, oo afka qalaad lagu yidhaahdo eponi, oo ah looxaanta xoogga leh oo raaga ee qaaliga ah, iyo foolka maroodi. waana waxyaabaha ugu badan ee laga dhoofiyo. laakiinse kuma koobna kuwaase, badeecooyin kale oo loo daabulo dunida dacaladeeda ayaa laga dhoofiyaa. waxa kale oo wax ka qoray magaalada muqdisho badmareynkii loo yiqiinay Vasco da Gama. bartamihii xilliyadii dhexe, muqdisho waxay ahayd magaalo ganacsi xoog leh uu ka jiro. waxaa maray qarnigii 15aad Vasco da Gama, badmareenkii Burtuqiiska ahaa ee caanka ahaa. wuxuuna ka qoray sidan: waxaan imaanay magaalo aada u weyn oo ay degan yihiin dad muslim ah. waxaa ku yiilay guryo ka kooban dhowr dabaq. waxaana magaalada bartamaheeda ahaa guryo aada u waaweyn. waxaana hareeraha kaga yiil 4 minaaradood. balse hadda waxaa ka dambeeya 2 minaaradood oo kale ah minaaradda masjidka xamarweyne iyo minaaradda masjidka cabdulcasiis. isagu kuma degin magaalada oo waxa uu ku ekaaday badda, sababta oo ahayd waxuu sheegay in ay magaalada degan yihiin dad muslim ah. isaguna wuxuu ahaa nin masiixiya, wuxuuna ka baqay in ay ka soo gaarto waxyeelo. waxa kale uu sheegay in magaalada ay ku tiil xeebta, magaceedunu ahaa muqdisho. waxa kale oo booqday magaalada Duarte Barbosa. Duarte Barbosa waxa uu ahaa badmareen ku dhashay magaalada Lisbon. wuxuu maray qarnigii 16aad magaalada muqdisho. waxa uuna ka qoray sidan: marka laga tago magaalada Baraawe oo loo yaqaanay Nikon, oo uu iyaduna maray, loona baxo dhanka badda cas, waxaa la tagaa magaalo aada u weyn oo la yidhaahdo muqdisho, oo ay leeyihiin dad muslim ah. waxayna magaaladu leedahay boqor. waxayna ahayd meel uu ka socdo ganacsi xoog leh. maraakiibtuna halkaa waxay uga imaan jireen boqortooyadii Kambaya oo Hindiya ahayd iyo Cadan. waxayna keeni jireen badeecooyin kala gedisan. waxayna ka qaadi jireen dahabka, foolka maroodi, xabagta iyo waxyaabo kale oo ay si weyn uga faa'iidaystaan. magaaladu waxay leedahay hilib badan, qamadi, sisin, miraha la cuno iyo fardaha. waana magaalo aada qani u ah. dadka oo idil waxay ku hadlaan afka carabiga. waana dad isugu jira dad madow, kuwa midab furan iyo kuwa cad. dadka degan magaalada muqdisho ma aha dagaalyahano daran. waxayna mariyaan fallaarahooda sun, taas oo ah waxaa hadda loo yaqaano mariidka, si ay isu difaacaan. sida uu qoray Rose E. Dunn, oo ah khabiir ku xeel dheer cilmiga taariikhda, saldanadda muqdisho iyo dhulalka kale ee bariga Afrika ee islaamka ahaa inay ahaayeen dhul barwaaqo ah, isaga oo barbar dhigay Ameerika waqtiyadii dhexe. dhul carasan ah oo ku fiican beerashada, aadna u biyo badan. waxa kale uu sheegay inuu ahaa dhul fursado badan oo dhaqaale laga samayn karo, iyo meel ku fiican in loo qaxo marka ay colaadaha iyo dagaalada dhacaan, iyo meel loo dagaago marka abaaruhu ku dhuftaan dhulkaaga, iyo weliba marka tirada dadku badato oo isciriiri dhaco. intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa qaybtii 5aad ee taariikhda magaalada muqdisho. qaybta 6aadna kala soco isla halkan oo ah janalka rugtayda. dadku yaqaan
durugsan bay jireen